farmaajo dalkan inaa mar dambe ka talisa lagama yaabo waa kuwa sirmare madaxtooyada kugu imaana madaxtooyada annagoo ah ummadda degan gobolka banaadir waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa haddii aan nahay shacabka gobolka banaadir waxaan maanta fagaaraha u taagannahay gudaha magaalada Muqdisho in aan cadeyno shucuubteena ku aadan doorashada sida wada ognahay annagu waxaan nahay dad cashuur bixiyaala madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si sharaf leh ayaa ku soo dhaweynay wixii shacabkan ay ku soo dhaweeyeen iyo waxay ka sugayeen ma aysan ka helin wax badan ayaa loogu soo sabray haddii ahaan leedahay xagga amniga haddii ahaan leedahay xagga siyaasadda dibadda haddii ahaan leedahay xagga dhaqaalaha dalka haddii ahaan leedahay xagga shaqo abuurka 4 sano ku dhawaad wax uu ka qabta ma lahan intaas waa loogu soo sabray haddeerna wuxuu u soo tafaxistay inuu boobo doorashadii gaar ahaan shacabka gobolka banaadir maanta arrintaas ayay u soo baxeen ayay ka dhiidhinayaan waxay sheegayaan farmaajo inaysan rabin ayay sheegayaan shacabka saacil mudaharaadkooda bilaawaan farmaajo wuxuu ka adeejiyey ciidankii qaranka in lagu difaaca loogu talagalay oo cashuurtii shacabka laga qaaday shacabka ku siiyo ayuu xal saqda dhaxa wadooyinku ku soo xirtay shacabka guryahooda ayay ka soo lumeeyeen xamar daafihiisa ayay iskaga yimaadeen lug ayay ku yimaadeen waxay u yimaadeen dhibaatada oo farmaajo ku haya inay ka dhawaajiyaan shacabka anigu magacooda ku hadlaayo waxaa cod dheer ku leenahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo doorashada ma boobi karo maamul goboleed mid kalena ma boobi karo banaadirna doorasho oo ku qaban karo oo asiga soo abaabushay oo ciidamada laba sugidda iyo baalkii CBB-da asiga u shaqaysay taageerayaashiisa doorasho uu ku soo abaabulo xamar Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu ku qabto xaaraan bay ka tahay madaxweynaha waa ognahay hal dhagda Fahad Yaasiin baa kaga jira hal dhagda Mahdi Guuleed baa kaga jira shacabka dadkaas ma difaacayaan ciidanka qarankana ma dhacaysa inaad doorashada ku bootid shacabka gobolka banaadir ee cashuurta ciidanka laga qaado ugu bilo waxay cod dheer ku leeyihiin ciidanka meel kasta ay joogaan ha u diyaar garoobaan difaaca dalka iyo muwaadiniinta cashuurta bixisa ha u diyaar garoobaan difaaca dalka diyaar muutiin doorashada difaaca sharaf leh ayaa lagu doortay waxaan diyaar u nahay inaan si sharaf leh ku sagoodino hadduu diidane asigoo bahalkii bini'aadinimada laga saara ayuu ka bixi doonaa xamar lug ayuu ka bixi doonaa aqalka sare farmaajo xamar kuma qaban karo haddii uu ku qabtana shacabka iyo ciidanka qarabka uu jiro asiga ayuu soo qabanaya waa u sheegaynaa farmaajo doorasho lagu macaamili karo farmaajo doorasho lagu macaamili karo waa dictatorship waa kalitalis doorasho lagu macaamili karo farmaajo ha dhaco waxaan ka rabnaa shacabka Soomaaliyeed dal iyo dibad meel kasta ay joogaan halganka loogu jiro dictator farmaajo dalka looga bixiyo ha ka soo qayb galeen doorashada waxay u taallaa shacabka Soomaaliyeed ayaga ayaa ka tashanayo sida la wada arki jiro doorasho wada galay ayaa xamar ka dhacayso farmaajo in la iska qabto in laga hortago doorashada oo boobaya ayay shacabka diyaar u yihiin diyaar ma u nahay farmaajo la qabto diyaar ma u nahay madaxtooyada la qabto diyaar ma u nahay shacabka Soomaaliyeed waxay ku soo baxeen banaanbax nabadgelyo ah aysan wax ku dhibaataynaynin cashuurtii laga qaado dalka lagu dhisay aysan ku burburinaynin laakiin banaanbaxan wuxuu gaaran yahay dictatorka farmaajo maafiyada la shaqayso in looga hortago shacab iyo ciidan Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Muqdisho joogana diyaar ku yihiin dadka dibadda joogana هذا اللي ابو باشا قال ما فقط تعود الميكروفون يا حلقه يا شعب الناس اللي قبل هذا دقيقه اسمه سياق قاعد تقص حكي شعبنا هذا خلي عاوز كذا شنو
inaanan dalka ku aamini karin shalaytoola dadkii doortay oo u bannaan baxay shacabka muqdisho ahayd maantana annagoo shacabka muqdisho ma doonayna farmaajo dalkeennana uma doonayna burbur haddii dalku inagu heshiiyey haddii dastuurka la baalmaro waxaa imaanaya burbur annagana haddaan shacabka banaadirnaana burbur ma doonayno doorashana kuma aamini karna doorasho laguma aamini karo farmaajo laguma aamini karo doorasho farmaajo ha dhaco laga maqlo ha dhaco qofka jaana siino saaxib waxa yarka hal gacan isku dhiib lana fi taab yarana siya oo bidaro bashiro bidaro saxno saxno rafna wala لا كلام بس هل ترجرو اسمع له أكل عقلي يا صار هذا صعمة هذا بلارو بلارو ربنا وصلنا أبو واحد من وصل لا بس صعمة بسم الله الرحمن الرحيم أنا عبد الله فرماجي شرب عند السوداء بين النبضي وناك وحق فينا كمان حلم وحاول نقدر كل تليه ما دورنا فرماجي أنا قد تقو ذلك يا سبور بركي تبعتنا ورسيني وده النبض هو يبدأ حكتها مرة من فرماجي ما دورنا